wasiir madaxaana furin yaa loo codeynin inuu tartamo oo loo ogolaado inuu tartamo ayaan daray markii qof wax loo soo dhiciyo qof kale uu soo dhiciyo wax ma wuu aamin kara aamin ma gale nin naagtiis loo guursado waliya ma maqashaan qarnimadeena waxay ku xiran tahay in wasiir madaxaana furin aan loo codeyn ku xiran tahay haddii loo codeeyo Soomaaliya dib ay u laabanaysaa dib yaa loo celinaa madaxaana furin hadda Soomaaliya hadda qof kara ma soo kordhina iyo wax qoonad waa nin dadkiisa deegaankiisa koonfur galbeed waa nin wax soo qabwaan kursi madaxweyne shaqo xog waastawaa asal leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka waa wallahi waa ayaan daro weyn waay aad iyo aad waana wax laga xumaado waay nin la og yahay in maanta oo yahay sirdoonka caalamka oo ka tirsan yahay wali Turkiga oo la og yahay oo la dhigi karo hebel waa sirdoon waa ninkaas noocaas maanta inuu u tartamo gudoomiyaha baarlamaanka ana speaker baarlamaanka aad iyo aad ayaan daro u tahay barmadooyna ku noqonaysa Soomaaliya waana sharaf dhac iyo sumcad dil iyo faluxumo waay ummadda Soomaaliyeedna ma soo dhaweynayso baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday oo haddana mar kale galaayo doorasho galaayo waxaan leeyahay baarlamaanow waa idinku qaadana taasay anakan waxaan ugu qaadataan ninkaas yaa loo codeyn wasiir madaxaana furin yaa loo codeynin inuu tartamo oo loo ogolaado inuu tartamo ayaan dare laakiin maanta filim Soomaaliya waxay wadata ay Soomaaliya ka soconooy waana fargelin qaawan waay oo lagu haayo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya oo Turkiga uu haayo waay Turkiga aantii u dambeysay bilooyinka u dambeeyay sanado u dambeeyay wuxuu soo xilxeetay Soomaaliya inuu fargelin qaawan ku qaado oo hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya oo fargelin ku sameeyo maanta tan hadii suurto gasho Britain waxa imaanayo madaxweyne Turkiga wata ayaa imaanayo ra'iisul wasaare Turkiga wata oo la ogyahay imaanayo tan waa cinaha baroo waay marka baarlamaanka sharafta leh ee Soomaaliya waxa ka codsanaynaa in ay noo qaadin ee noo ogolaanin hilib waa la cunaa jiro quud waxa noo cuntamina jiro noo aamino lacagta ka qaata dhahay lacag sideeda qaadis waay baarlamaano lacagta ka cuna laakiin markay codka tagto yaa loo codeynin sharafteena midnimadeena horumarkeena wadajirkeena Soomaaliya qarnimadeena waxay ku xiran tahay in wasiir madaxaana furin aan loo codeyn ku xiran tahay haddii loo codeeyo Soomaaliya dib ay u laabanaysaa dib yaa loo celinaa leenahay saameyn culus bay ku yeelan kartaa sharaf dhacayna noqon kartaa baarlamaanka awalka hore hal lagu ka jabnay ma shaqeyneenin jiiso ahay haddii ninka la sii doortane way ka sii daraysaa lugta kale la sii jibina baarlamaanka asoo curyaan ahay ayuu toos curyaan u noqonaya mid kale mashruuciyo fara badan oo Turkiga oo leeyahay ayaa la saxiixaya wadankaana for sale waayo sidiisa banaanbo marka wadankeena waa jecelnaanay ha nolol codeeyo waxay labaano noo codeey maanta hiilo wadanka ka baahan yahay maanta ha u codeynin lacagta ka qaado ninkaas lacag wata waa sax waa la fargelinayo waa sax hay'ado shisheeye iyo dawlad shisheeye fargelinayo lacag siinayo waa sax lacag sida qaadis waay laakiin codka markay tagto ha u codeynina leenahay war Soomaali sideeda wax kasta xoog waay madaxweynaha xoog ku jooga wasaaraha xoog ku jooga dawladda dhacay xoog ku joogtaa nin dhacay xoog ku jooga baasta dhacay xoog ku joogtaa wadanka markii la joogo wax walba xoog ku joogan hadda kursiga xoog oo ku joogo oodana oo ku filnaa waay kursi kale ka sii weyn oo raba inuu xoog ku joogo marka Soomaaliya ilaahay oo maqan dadka Soomaaliyeedna meel fog ay ka imaadeen ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka codsanaynaa in ninkaasi oo noqonin gudoomiye noqonin ba ilaahay ka codsanaynaa insha Allah ducadeena ilaahay hana aqbalo baarlamaanka sharafta leh ee meeshaas joogo waxa leenahay lacag sida qaadis waay ninka lacag ka dadaadinooso malaayiin lacag lagu faran gareey lacagta ka qaata laakiin cod hasiinina idinkaana ma tashan leenahay horta niyo waa ku dhawaay magacayana ku bilaabay maskarka madege nin haddaba wax oo dhacsan waay wax loo soo dhiciyay inuu wax hogaamin karo ma kula tahay adiga ahaantaada aniga maloon ahaan waxaas dhan madaxaana furnaa ka dambeeya waa ka warhaynaa waxaas dhan ma fahantaadee anaga madaxaana furnan toos u noqonaynaa ma fahantaadee marka haddaba xil lagu soo dhiciyay xilka labaad adiga oo lagu dhicin karo oo niyo adiga dhicis leeyahay marka sadadku lagu hogaaminaa marka wax loo hogaamin karo malahan beesha madaxaana furnaa oo isku umaarta waa ognaane haddana baasha madaxaana furnan toos ay noqoto waa arkoona jeebka waa laga tagay marka madaxaana furna adii rabti madaxaana furna maxaa ka noqonaysiin
farmashiyoonka aad tegaysnaa bes waay marka bereberi iyo daraami iyo qashin iyo balaay dhanac isku soo qabanaynaa dhagabaa isku soo siinaynaa toosaa madaxa u furinaynaa markaas maxaa dhacay aaminaad warkiisa waa dhammaadaba yaa la aaminaa laba qofood isla socota oo mid loo soo dhiciyoban aamin ma u imaanaaba hadhowkii kuu soo dhiciyaa kuugu soo jeesanayaba ma ogtid miya aade marka afaarahaas dhan waa laisku fahmay anaga waa kabar haynaa marka qof wax loo soo dhiciyo qof kale uu soo dhiciye wax maba lagu aamin kara aamin maba kale nin naagtiis loola guursado weliyaa ma maqashaade ma maqashar afaarahaas weli ma aragtaade yaa haddii adda wax loogu dhiciyo dirinin adin waa ogtaa oo maleynaano meel lee dhacay baashan uwad baash seef waa saamil noocay kulayn karaa shacabka dhan laba inuu iskugu geeyo rabo nin walba madaxa loo furo rabaa dhow waa fahamsanaha aniga marka madax furis intaasaa noogu badan inta madaxa noo furan intaas lee noo ahaato waxna ma la hogaamin karo waa ogtahay baashan adaaba jaamjaam iyo jiimjim lagu dhiciyo waa ka warhaynaa wallaahi horta marka hore waa salaamayaa t v dhammaan shacabka Soomaaliyeed soo waa salaamayaa bacdisalaam haddii walaa arrintaas ka hadlo runtii waa arrin runtii aad nasiib daro waaye waa runtii arrin oo la xumaado waaye nin nool oo kursigiisa oo xilwaanimo u haysto oo maanet u haysto in qofka la siiyo oo maanta raad gudoomo gala shacabka loo dooranaa wallaahi aan ma aqaan kulay Soomaal meesha loo ma aqaano Soomaal meel oo socotay meesha u socotobo wallaahi kulay ilaahay yaqaan صوت محيلايو نيكي هذا آية كان أو بريتو للدورة دون يقولون شعب كبارمان كان بريتو للدورة ما نفرن هذا الصومالي هذا هو قوكرا معصو كرنا يو حقون هذا وأنا دت تيس دياجس كوف قلبه وأنا هو حسوا قوان كرسي ما حلو أنا شكو حقوق واستوى أصلا ليه ما قدوم بارمان كوا وارد تصارين رنتي آدي هذا وخنا وايم وارد تصارين ميلين أنا صارين أكسور جينا ما نتاير سنة ما نعقل سنة ما أنا تاير سنة أنا حلوان ومش غايو وزير ومش غايو مدحون ومش غايو أنا مارت دتك ومش غايو أنا لا ده ويا بنا دتك ومش غايو لما تود على قتيال وايا وأنا من الله رسول يخان معهن لمن الله يخان معهن ورحلوان لو آخر بارمان الصومالية كتابة عن صارين ويا دارتين دتك ودارتين إن عقونايم لكن حنا كنبو نو حنا كنبو أو إلهي أخوان الله رسول أخوان نبو أو دول الشيء بتان مركو حنا لما مدحنا فرن بارمان كله لاليو madaxana fur baarmaanka uu dhibin ani qaal oo xishma qaano soo loo darto ma qaano markii ujeedada waxa leeyahay madaxweynihii hore waxa waqti kale waxa leeyahay danta Soomaaliya ka weyn dantada gaarka danta qaranka ka weyn ilaahay ka cabso danaada oo ma gaarka wada jooji ilaahay ka baq Soomaali waxa loo baahan yahay inay isgarab istaagto oo ay ayood masiiro ka tashtaan ma ahayn laakiin hadii oo la keen maalinta berita oo madaxana fur la doorto Soomaali ugu degash Soomaal ku talisa ku jirta ku talisa gashay ebil baanay qaar ka Soomaaliyeed qaar ma la filaayo waxa soo guriga ma lahan waxa la ninkaas waa la baaran ninkaas la ilaaliyo xilwaanada aniga oo la ishay xalay lacagta qaad la ishay oo lacagta la siiyay lacag luula lu sheeg war lacagta xilwaanka hal xilwaan lacagta luula lu sheeg intaas kaliya waxa way codka ninka siwa marka waa iska cadahay ujeedada oo ninka loo wato iyo waxa loo kasbasho iska cadahay marka waxa leeyahay dawladda waxa leeyahay oo xilgaarsiinta waxa leeyahay ilaahay ka cabsada dalkii dadka loo turo dawladnimada la shaqeeyo maartay baarlamaanka sharaftiisa sumcadiisa meel loo dhacay sharafta baarlamaanka waa dhimatay sharafta xulaanada waa dhimatay sharafta oo dawladnimada waa dhimatay sharaf ma hadii marba ninkaas oo la soomeeyo kaasanaay wala kulaan waxa arkay arrin nasiib dar aad weyn waaye war arrin sax ma ahan waan xaraan waaye doorashada dalka socota kulligeed wala xaraan waaye kulligeed doorashada dalka socota xaraan waaye qafi qor waaye hadana waxa socota anaa ku wato meesha u geystay ii tag saasa socota bariyaan marka waxa leeyahay maarta dawladana oo hor waqti kale waxa leeyahay war doorashada dalka aaga wadin doorasho maaha doorashada anay aragna waaye wax qafi Allah ma jiraan doorasho qafi qor waaye qafi cod maahan ilaahay ka cabsada baan sheeyina oo haddii dan istaalatiin Soomaaliya ka shaqaysiin dan oo umada ka shaqaysiin kaliya shaqaya u shaqaysiin shaqaya wadeegtiin anayna ma wadeegtiin waxaan aqoonti malahan Ali Rasuul ma taqaan ilaahay ka cabsada waxa leeyahay dalkan dadkan ilaahay oo maqan Soomaalnimo anaga wax ka soo iimaano war beel caalam loo leeyahay war feer dawladnimada meesha loo wada saakan wala waa yaabana Soomaal meesha loo waa yaabana Soomaal meesha u socod saaki aan wala waa yaabana marka kulli waxa leeyahay istighfaarta la soo maro hala soo wardiyo hala soomo oo kuwan shartooda ilaahay oo nafiyo oo la keen maalinta berita oo madaxna fur la doorto Soomaal ugu degash nin hadaba wax oo dhacsan wax loo soo dhiciyay inuu wax hogaamin karo ma kula tahay adiga ahaantaada
aniga maloon ahaan waxaas dhan madaxaana furnaa ka dambeeya waa ka warhaynaa waxaas dhan ma fahantaade